kalluunku sidan ayaa loo samaystaa kalluunka wanaagsan ee freshka ah ee waddankeena laga helo oo soo saaray biyo ayuu ku meedhay kalluunkii milix ayuu dhexda ka mariyay ama cusbo basashii ayuu googoostay kadib iyadoo balbalaaran ayuu kalluunka gudihiisii u geliyay haddana tamaandhadii buu googoostay gudaha ayuu ka geliyay kamasaradii buu jarjaray gudaha ayuu ka geliyay liin dhanaantii ayuu googoostay gudaha ayuu ka geliyay wuxuu jeexjeexay kalluunkii wuxuu isku darsaday milix iyo xawaashidii kala duwanaa iyo saliid saytuun waa isku walaaqay dusha ayuu kaga shubay kalluunkii liin dhanaan ayuu meelihii jeexjeexnaa geliyey kadibna aluminiumkiisii ayuu ku duubay ofankiisuu sidaa ku gelinayaa ama dhuxul kolba wixii aad haysato halkaas ayuu soo dhigtay bariiskiisii dalac bilaashkiisii buu imika samaysanayaa Soomaalidu waa dadka ugu xeebta dheer Afrika uguna kalluunka badan haddana waxa loo soo dhoofiyaa kalluunka Thailand war Soomaaliya hilibkii xooluhu uu yaraado cidhiidhi buu noqday qaali buu noqday kalluunka hal la barto kalluunka hal lagu yaaco maskaxda cudurradana waa ka dawo maskaxda uu koriyaa hadda dalac bilaashkiisii ayuu samaystay kalluunkii uu ka soo saaray oo isku moofoobay oo noqday isku xisaab kala xisaab alaab bicayn alaab iyo alaab ayuu noqday faraha ayuu soo kala raacayaa war Soomaali waxaan leeyahay kalluunka lagu yaaco kadibna dalac bilaashkaaga iskaga cun wabillahi tawfiiq